inaan ka ilaaho wixii inaga habboon qaskan iyo dagaalkan ka socda dalkan jaarkan ee Ethiopia. waxaa muuqata dagaalkii inuu yahay dagaal fidi doona oon ku eekaaneen waqooyiga Ethiopia deegaanka Tigreega siduu sheegay amba uu qaboba ra'iisul wasaaraha Ethiopia. dagaalkaas haddaan la xakameyn oo inta goor tahay aan la joojin geeskoo dhan saameyn weyn ku yeelanaya. marka innaga oo ah Jamhuuriyadda Somaliland oo geeska kaga naalan meel halbowle ah waxa weeye inaynu inaguna mowqafkeena aynu sheegnaa tala waxaynu haynaa bixinaa. marka waxaan anugu leenahay haddaan leenahay xisbiga cadaaladda daryeelka xabaddu ha joogsato caqligu ha shaqeeyo annagoo tix raacina baaqyada adduunka u soo jeediyey ra'iisul wasaaraha Ethiopia. anagu waxaan leenahay ra'iisul wasaare isma qabtaan waxaan helay biladii nabadda iyo dagaal baan ku qaadayaa dad ummadayda ka mid ah oon leeyahay qasab isku dhiiba wax suurtagala maaha. waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo hala bilaabo wada hadal weerarkan ha laga joojiyo oo adduunka baaqyada ay soo jeedeen oo anagu aan ku darino dhagaagu ha u furmeen baan leenahay. shacabka reer Somaliland iyo dowladda Soomaaliya waxaan leenahay waa in u diyaar garownaa inaguna arrintan magaranaysaa diyaar garow aan sameynaa. haddii halkaasi nagu dilaacdo 110 milyan baa weeye wayna soo gaadhayaan qaxoontigoodu. malaana waxa weeye arrinta Ethiopia qalalaasyadu kuma eegno qura arrinta Tigreega. qowmiyo badan ayaa iyaguna magaranaysa kacsan ilaa intuu Axmed yimi ilaa wax ka badan 2 milyan oo qof ayaa barakacay. meelo badan buu dagaalo sokeeye ka socdaan. marka waxaan leenahay arrintaasna loo foojignaado. waxaan mar kale ku celinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxda federaalka waxaan soo jeedinaa inay xabadda joojiyaan wada hadal la bilaabo adduunka baaqyadooda la maqlo la ixtiraamo.